بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلالة عظمته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إخواني وأخواتي وراله قيمها شرفت بضن وإلهي سبحانه وتعالى درتيسة أن سقول نمت إن عندك سنة كلام الله سبحانه وتعالى سيد النبي ويرى عليه الصلاة والسلام قوم مجرى كل مي قوري كمذا قوريها إلهي حنكسوا هذا يا مسجد كمذا مساجدها قبل كمين السوطة إيقوا مركاسي أكل ما يوه إني دراسيان كتابك إلهي سبحانه وتعالى وحن دراسين إنه كتابك إلهي إلا حفتهم الملائكة ملائك أيا سكوري جنيسو ملائك أنا لجوكتو ملائك تاسي وغسيتهم الرحمة نحرست إلهي سبحانه وتعالى وإنو إيمانيسا ذكرك إلهي أن حسين درتيسا وحاكلو سودقيس السكينة راحو قلبنا راحو كجراه ساعة دقيقتها صوص عطنا وحنكون راحيساننا كتابك إلهي سبحانه وتعالى وحنكون راحيساننا رسولك عليه السلام هذا الكيسي حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحنكون راحيسان دونا أقواشي علماء دي لغا هريسي ينولوش دادك كراماتك إلهي أوسيي وأنبياء دي ugu horeeyaan iyo أولياء إلهي سبحانه وتعالى. ما أنت موضوع وحان كدغي محاضرة natiijada kuu muuqanayso oo aad arkaysid markaad ilaahay keliya isku xirto natiijadaas oo ah natiijo oo soo degdegayso laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay oo keliya acuudu billahi min ashaytaani alrajiim. ilahay wuxuu leeyahay fadkuruunii adkurkum fadkuruunii aniga ixusa oo keliya aniga keliya ixusa أذكركم وإذن حصايا مقعينا ماشان لغا شيغايا إلهي سبحانه وتعالى في العليين ملائكتاسي سرسريسة أبتوضا وحلقو حصايا مقعالي مركز إلهي سبحانه وتعالى حسوسته محيكادي بيساينات فريسته أو إلهي سبحانه وتعالى مقعيسا آد حسته محيكادي بيساينات فريسته أو آتراهدو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم oo rasuulku yiri عليه الصلاة والسلام dambiyada hadii la egihiin xumbada oo badweynta xumbadeeda oo dhan wax tirin kara ma lahan ee dambiyada ay gaaraan oo aad ku celiso subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim oo aad ku celiso oo micnaheeda oo kooban oo ah ilaahu adaa dhameystiran ilaahu adaa xumaan oo dhan ka fog hadaa ku celiso wax alla wixii dambi ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ka gashay oo dhan ilaahay wuu kaa tirtirayaa. maanta waxaan ka hadlaynaa oo xoogga aan saaraynaa dadka dikriga badan khaasatan ilaahay xusaaya markii iyaga ilaah keliya ay yihiin iyo natiijada aad arki doonto. waxaan ku bilaabanayaa qiso nin sheekh ah oo rajaynayo weli inuu nool yahay sheekh sacuud al-rashiidi oo asiga aan ka maqlay afkiisa dikriga badan uu sameeyo darteeda ma rabin inuu sheego laakiin mucjizo dhacday ahayd ama karaama oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dedejinayo dadka sameeya labadan shay in ilaahay aad xusto kow iyo in khilwa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo keliga ah cidna aan ku ogeyn ilaahay aad la munaajoto munaajaat aad la samayso. munaajaat waxaa loola jeedaa ilaahay inaad la hadasho. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كقفك مركو أخرينايو إلها الله الله إلهي أذوك الله الله هذا إلهي مركو الله فاذكروني أذكركم إحسا أنا إذا حصوصنا يو حالة دا كجرت أنا حصوصنا يا هذه حالة فخر إيتهاي وحمان إذن سينا يا هذه حالة حنون تهي حنون كان إذن كقاضا يا هذه حالة إلما الآن تهي إلمان إذن سينا يا هذه إلما أدلاب هاي وباريال إنو إلهي كأدي أو يدين يسد baariyaalan kaaga dhigayaa laakiin aniga kaliya i weydii wax walba gacanteedii ku jiraan cid kale wax haysto ma lahan anaa wax walba hayo maalikul mulki waaye wax walboo jiro dhan marka akhrinaysa laa ilaaha ila allah
waxdahu laa shariika lah, ilaahu keliga wax lala barbardhigo ama lala wadaajiyo ilaahay ma jiraan markaad leedahay lahu lmulku walahu alxamd. wax walbo lahu lmulku waxa weyaan wax walboo jiro, wax walboo makhluuq ah oo aad abuurtay. lacagta ilaaha abuuray, shaqada ilaaha abuuray, ilmaha ilaaha abuuray, xaasaska ilaaha abuuray, wax walbo adduunka jira ilaaha abuuray. baabuurtaasi wax walbo ilaahay subxaana wa tacaala gacantiisay ku jiraan, mulkiyadiisay ku jiraan. ilaahaasi haddaad saas u rumayso oo aad gaarto yaqiintaasi oo aad og tahay wallahu calaa kulli shayin qadiir, inuu wax walba karo, wax walbo ilaahay subxaana wa tacaala xanuuna ku hayo, kun fayakuun, intaasay ku xiran tahay. kun fayakuun, caafimaad hel waad heli, ilaaha dhahayo. laakiin ilaahaas inaad cilaaqa la yeelato waa, ilaahaas keliyana isu dhiibto waa, inaad cilaaqaadka makhluuqaadkiisa oo khaasatan oo awoodaha ilaahay subxaana wa tacala inaad ka go'do waa. markaa saas samaysa maxaa dhacaya marka? karaamaadaad arkaysaa. sheekh sacuud alrashiidi wuxuu noogu sheekeeyey dikri badan iyo khilaabo uu sameeyo ilaahay subxaana wa tacaala inuu la gooni noqdo. maxay kugu qaadanaysaa 5 daqiiqo. 5 daqiiqo mararka qaarkooda. ilaahay subxaana wa tacaala raxiimun, alla waa naxariis badan yahay. wallahi ilaahay raxiimun waayo. rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii ay soo dhawaatay geeridiisa wuxuu yidhi ummatii ummatii, ilaahu ummadeyda xaaladooda maxay noqon doontaa? cadaabaa loo socdaa dadka qaarkooda, dadna jannay aadayaan. ilaahay ummadeyda maxay noqon doontaa? ummatii ummatii. ilaahay markaasuu la hadlay rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam, wuxuu dhahay yaa maxamedo calayhi salaatu wasalaam, ummadaada ka walwalaysaa, ummadaada u naxaysaa, nin raxiimaa tahay, ra'uufu raxiim. ilaha sheegay sifooyinka rasuulka ahayd, ra'uufu raxiim, ra'uufu raxiim, mid dhimrin badan oo naxariis badanaad tahay. waxaan ma rabtaa ma kugu soo wareejiyaa, ma u naxariisanaysaa adiga? fiiri ilaahay subxaana wa tacaala, ilahay suu noo jecel yahay. fiiri ilaahay rasuulka calay salaam suu u jecel yahay. fiiri ma kugu soo wareejinaa, ma hoosha naxariista oo dhan ummadaada gacanta ma kuu gelinaa? markaasaa rasuulku wuxuu yidhi xaashaa lilah, maya ilaahow, ana arxamu mink, ma anaa kaa raxmad badan ilaahow, innaka anta araxmaanu raxiim. waa magacyada ilaahay lagu baryo waayo. haddii ilaahay aad ku tuugto magacyo khaasaa jiro oo culummada ay yidhaahdeen, haddaad gacmahaaga taagto oo ilaahay aad ku tuugto magacyadaasi, ilaahay ducadaada wuu aqbalayaa. waxaana daliil u ah xadiiskii ninkii gacanta taagay oo dhahay allahumma innii as'aluk annii ashhadu annaka anta allah laa ilaaha illaa ant al-axadu as-samad alladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. magacyo 3 uu sheegay. allah wuu sheegay, al-axad wuu sheegay, الصمد wax walba bixiyo waayo, wax walba gacantiisay ku jiraan wuu sheegay. markaasaa wuxuu yidhi rasuulka, wallaahi ilaahay magaciisaan ku dhaartaye, wuxuu ilaahay ku baryay ninkaasi wax haddii lagu baryo qofka markiiba ilaahay uu siinayo. maxay kaa dhibaysaa 5 daqiiqo fariiso, qol isku soo xer, adoo gaarigaaga wado, carabkaaga ilaahay ku xus. maxay kaa dhibaysaa 10 daqiiqo habeenkii ilaahay hadaad u istaagto? maxay kaa dhibaysaa iyagoo dadka hurdaayaan cidna aadan ku ogeyn inaad soo kacdo oo ilaahay subxaana wa tacaala oo madaxaaga dhulka u dhigto oo ilaahay subxaana wa tacaala aa weydiisato waxaad jeceshahay oo adduun iyo aakhira ah? maxay kaa dhibaysaa waqtidaas oo yar? sheekh alrashiidi wuxuu yidhi digri kadib waxaan soo boqday hooyo macaanaan soo boqduu yidhi. markaan soo boqday qolkeedii waxaa arkay inuu kuleel yahay. hooyo aad baariye u ah ayay ahayd. waxaan dhahay hooyoy, waa birul waalidiin weeyaan. fiiri birul waalidiin qofka say u soo dedejinayso. waxaa la yidhi qofka ku dhinta isagoo labadiisa waalid ay raalli ka yihiin, qofkii dhinta maytatu suu u ka nabadgelaya. maytatu suu waxaa waaye in qofka si xun uu u dhinto. allahu akbar,
macnaha suu khaatima maku dhimanayso haddii labadaada waalid aad baari u tahay kelmadda tawxiidka ama kelmad fiicnu ilaahay ku waafajinaya markaad dhimanayso xaalad fiicnu ilaahay ku waafajinaya labada waalid haddaa baari u tahay wax la arkay waayo marka waalidkiisii hooyadiisii nool u tegey wuxuu dhahay hooyo qolkan waa kulul yahay waxay dhahday wiilkeygiyow ma kulula markaasaa wuxuu yidhi kulaalka waa dareemaysaa markaa gashid dhidida kaa imaanayo hooyo waa kulul yahay waxaan kuu raadinaa mukayf hooyoy waa qaali afwan iska dhaaf hooyo waa qaali iska dhaaf maya hooyo wuxuu dhahay wallaahi waxaan hayo waa lacagta keliya waa qiimaha mukayfka lacagta aan hayo waa soo baxay meesha mukayfaadka aan waxaan dhahay afdal mukayf aan rabaa waa la ii soo saaray qiimihiisaan weydiiyey waa lacagtii aan hayo oo dhan wax dambe oo masruuf ma haysto wax dambe ma haysto laakiin hooyaa ii raaxaysanayso digrigan ka soo baxay uu dhahay ilaahay xusitaankiisa oo cidna aysan ila ogeyn waxaan sameeyey hooyo saan ugu farxiyo waxaan soo qaaday mukayfkii macnaha raalli ahaada wuxuu yidhi lacagta markaan bixiyey culummada waxay dhahaan markii cibaado aad samaynaysid ikhlaasna ee kaa tahay ilaahayna uu raali ka yahay cibaadadaas markaad samayso jawaabta markaasaad helaysaa ma soo daahayso allahu akbar allahu akbar lacagta markaan dhiibi u dhahay oo gacanteeda ninkii aan ka soo qaaday oo aan sii daayey oo lacagta uu tiriyey ayaa telefoon ii soo dhacay u yidhi telefoonaa ii soo dhacay u dhahay telefoonka markaan qabtay anina wuxuu leeyahay ani maxaan humuum ay hayay fadkuruunii adkurkum bixusuusta anaa idin xusuusanaya xaaladiina ilaahay wuu ogyahay u dhahay wax ma haysto lacag masaariiftii iyo wixii oo dhan waxaa haya ma lahan markaasaa fadkuruunii adkurkum ilaaha xusay maxaa dhacday wuxuu dhahay telefoona ii soo dhacay telefoonkiiaan ka jawaabay wuxuu yidhi hebel aan may xusuusataa waa xusuusan waaye iska kay xusuusi aan dhahay wuxuu dhahay muddo fog ayaad isiisay lacag deen ah oo intaas la eg markaas waxaa igu dhahday markaa awood yeelatay ii keen gurigaan tegey haddeertaan gurigaan aan ka soo baxay u dhahay haddaan gurigiinna marka albaabka garaacay oo aan ku weydiiyey waxaa la ii sheegay inaadan joogin markii la ii sheegay inaadan joogin waxaan dhahay yaa tahay waa hooyada ayay ahayd waxay dhahday waa hooyadiisa markaasaan waxaan dhahay hooyoy waatan ammaano waaye adaan kuugu dhiibay oo lacag deen ah oo wiilkaagii igu lahaa marka haddaan soo helay markaasaan dhahay allahu akbar lacagtuu ku hadlaayo waa 10 laabka iyo lacag fara badan ayay ahayd oo ninkaasi aan ku lahaa oo aan iska hilmaamay xitaa aswa arsaaqda ilaaha hayo arrazaaqu dhu lquwati almatiin maxaa lagaa rabaa adiga magaca ilahay wax ku bari risqi markaa weydiisanaysa maxaa leedahay yaa razaaq farzuqnii risqan xalaalan tayiba markaa cilmi ilaahay weydiisanaysa maxaad leedahay yaa caliim callimnii cilma addiin wa cilma annaafic allah cilmiga badnaa cilmiga diinta iyo kan naafica i bar markaa xikmad raadinaysid maxaad leedahay yaa xakiim farzuqnii xikmatak ilaahu xikmadaada isii ilahay inuu xikmad ku siiyo waman uuta alxikma qofka xikmad la siiyo oo ilahay xaggiisa ka timid faqad uutiya khayran kathiira khayr fara badan ayaa la siiyey xikmad waxa waaye hadalkaaga kaa soo baxaya waa khayr waxaad dhegaysanaysid waa khayr waxaad arkaysid waa khayr xikmad waa tawfiiq ilaha tawfiiqda ku waafajinayo waxaad samaynaysid waa khayr xikmaddaasa ilahay weydiisanaysaa marka yaa xakiim farzuqnii xikmataka yaa xakiim markaa rabta umuurahaadoo dhan ilahay inuu tawliyo oo ilaahay gacanta uu ku hayo oo naftaada aadan ku aaminin oo dad kaloo makhluuq ah aan wax qaban karin oo tabar daran aadan ku aamin maxaad leedahay yaa weliy tawalli amrii yaa weliy ilaahu adaa weli ah adaa wax walba tawali ah wax walba adaa maamul ah wax walba adaa kara ilaahu umuurahayga adiga markaasi gacanta ku haya ya rab alcaalamiin marka ilahay weydiisanaysa naxariis inuu ilahay kugu naxariisto caafimaad inuu ilahay kugu naxariisto ilmo baariyaal ah inuu ilahay kugu naxariisto xaas baariyad ah haddaad gabar tahay in ilaahay haddaad tahay hooyo ama haween haddaad tahay ilahay inuu kugu naxariisto nin baari ah
waxaad leedahay yaa raxmaanu raxiim. waxay ka mid tahay magacyo oo culammada qaarkood ay tilmaameen ilaahay uu jecel yahay in lagu baryo, inkastoo magacyadiisa o dhan ilahay lagu tuugi karo. magacyadaas waxaa ka mid ah alraxmaanu raxiim, alwaaxidu alqahaar, yaa xayu yaa qayuum, yaa badiica asamaawaati waalard, yaa mannaan, yaa xannaan. ilaahay markaa ku tuugto magacyadaasi waxaad arkaysaa ducadaadii oo la aqbalay. aad arkaysaa dadka adkaarta badan waxaa ka mid ah nin la dhihi jiray ayuub. caabid ayuu ahaa ninkaasi, faqiihna wuu ahaa, nin cibaado badan oo faqiih ah. waxaa la sheegi jiray habeenku dhan uu istaagi jiray. anaga meeqaan ka istaagnaa habeenkii oo ilahay aan usoo kacnaa. habeenkii dhan uu istaagi jiray, wuu dhumasho badnaa. cibaadada waa la qariyaa, wuu qarin badnaa cibaadada intuu qarin karo, wuu dikri badnaa. maalin waxaa dhacday dad uu la socday oo safar lagu jiray ayaa biyihiia go'ay. safarkiina waa dheeraaday. meel ceel iyo meel war iyo wax ka dhow oo dhanna way waayeen. waa la orday, meel kastaa la aaday, waa la gaajooday. biyi la-aanaa dhacday. ilmihii oohinay bilaabeen. xoogaa wuu xanuunsaday, macnaa isaga wuxuu u xanuunsaday, waa dhimriyaan ula jeedaa, ilmihii iyo dadkii oo rafaadsan. markaasaa meel gooni u baxay. waa la arkay, dadaa arkay. markaasaa wuxuu yidhi kuwiinay arkayo ma ii ballan qaadaysaan in aad qarinaysaan waxaad aragtaan? markaasaa waxay dhaheen waa kuu ballan qaadaynaa. muxuu yahay waxaasi? wuxuu yidhi waxbaan rabaa inaan sameeyo, ii ballan qaada inaydan cidna u sheegin, ilaan haddaad i aragteen anoo meel gooni u baxayo. markaasay dhaheen waa kuu ballan qaadaynaa. markaasaa wuxuu sameeyey 2 rakac uu tukaday. 2 rakac keliya kaa xigto. markaa rabto qof inaad telefoon u dirto, lambarka qofkaasaa garaacaysaa, markaas isagaa kaa qabanayo. ilaahay haddaad rabto inaad garaacdo, nambarkiisa allahu akbar ayaad leedahay, ilaahaad tuugaysaa. allahu akbar ayuu dhahay. 2 rakacuu tukaday. markuu dhamay sujuudda ayaa wuxuu yidhi ilaahu dadka waa gaajaysan yihiin, waa ooman yihiin, biyay u baahan yihiin. ilaahu waxaan rabaa meesha dhinaceega ah inaan ku garaaco lugta oo biyo aad ka soo saarto. assalaamu calaykum waraxmatullah, assalaamu calaykum waraxmatullah. salaaduu ka baxay. markaasaa iyagoo dadka ay fiirinayaan dhulkii wuxuu ku siiyey jug cagtiisuu ku siiyey. markaasaa buruq biyaa soo burqoday, buruq biyaa soo baxay. biyo oo markaas sida tubo oo kale oo nadiifaa soo baxeen. markaasi wuu orday, wuu ka leexday meesha. dadkiia wuxuu dhahay ma sheegi kartaan waxaa aragteen, dadka u sheega biyaha meeshaan yaallo. markaasi kadib dadkiiyaa dhawaaqay. waxay dhahen biyaha halkaan yaallo, biyaha ka burqanaya meeshaan sida il oo kale noqotay, il macaan. waa la soo wada orday, biyihaa la cabay, waa lagu weyse qaatay, qaarkood way qaateen, waa lagu qubaystay. markaasay nasteen, biyahay ay heleen. maxaa shardi ah? waxaa shardi ah oo keliya ilaahay inaad xusitaankaaga ilaahay inuu badan yahay. waxaa shardi ah ilaahay keliya inaad isu dhiibto, cilaaqa gooni inaad la yeelato. ilaahay subxaana wa tacaala waxaa jira owliyo. owliyadu maxaa waaye? owliyo waxaa la lahaa dadka ilaahay cilaaqa gooni ah la sameeyey. qof kasta owliyo ma noqon karaa? ilaahay kitaabkiisu ku sheegay aladiina aamanuu alaa ina awliyaaa allah laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. alaa ina awliyaaa allah laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. awliyada ilaahay laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun, ma cabsanayaan. culammadu waxay ku fasireen ma ka cabsanayaan wax fiyuujarka iyo waxa dhici doono, kama cabsanayaan. oo ilaahay subxaana wa tacala isu dhiibeen. cabsi dhan kuma jirto, qalbigooga ma cabsanayo, waxaan ilaahay ahayn kama cabsanayaan. khawf dhan ma lahan. dadka walaca badan, welwelka badan, intaasoo dhan mar haddaa awliyada ilaaha ka mid noqoto, welwel ma jiro,
cabsi ma jirto, wixii dhan way kaa tegayaan. maxaa dhacay? cilaaqo qaasaad ilaahay la samaysay. maxaa waa cilaaqada qaas? waa salaatu leylka. maxaa waa cilaaqada qaas? waa dikriga badan. maxaa waa cilaaqada qaaska? waa khilwo waayo, gooni u ahaansho ilaahay oo adiga ilaahay subxaanahu wa tacaala is og oo keliya. qofkii khabii'a samaysan karuu dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam, faliyafcal. khabii'a waxaa la dhahaa camal oo gaar ah oo ilaahay maana cid kale aan kula ogeyn samee. wiilkan waa kaas, sheekhan hooyadiisu u sameeyey camalkaasi oo gaarka ah, cid loo ogeyd ma lahayn. isaga iyo ilaahay iyo hooyadiisi ay ku ogaatay oo guriga la joogtay. waa qolkeedii maaha qolkiisi wuxuu gelinaya mukeefka, waa qolkeedii waay. wuxuu rabaa inay raaxaysato. ilaahay subxaanahu wa tacaalana rasuulkiisa wuxuu noo sheegay rida allah fi rida alwaalidayn. rida allah fi rida alwaalidayn. labadaada waalid oo aad raaligeliso oo ilaahay raali kaaga noqonaya. nin caalima xadiiska sharxay wuxuu dhahay, qofkii caqli leh wuxuu samaynayaa hadduu xadiiskan maqlo meel kale maba aadayaba. saacadaha shaqada uu gelin lahaa hooyay aabbuu gelinaya. hooyoy maxaa rabtaa? maxaad jeceshahay? maxaan kuu samaynaa? aabbow maxaa rabtaa? maxaad jeceshahay? maxaan kuu samaynayaa? nebi ciisa la yidhi calayhi salaam, waxaa maalin ayaa ilaahay wuxuu yidhi weydiiso waxaa rabta. wuxuu dhahay, ilaahu waxaan ku weydiinaa oo aan rabaa inaan ogaado man huwa rafiiqii fi ljanna. qof walba saaxiibuu leeyaha layidhi jannada. saaxiibkeyga gaarka ama ii sheegi kartaa aniga ilaahu kaasaan rabaa inaan ogaado. xoogaa kaasaan ka warwarsanaa yuu noqon doonaa. markaas ilaahay wuxuu yidhi, ciisow safar gal. safarkan manaa safar gal. safarkas intaad ku jirto ayaad arki doontaa rafiiqaaga fi ljanna. ciise safaruu galay. safarka intuu ku jiray ayaa habeen mugdi ah waxaa ku galay meel guri ah. gurigii garaacay. wiilaa ka furay oo dhalinyaro ah. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. markay issalaameen kadib ayaa waxaa dhacday, ayaa wuxuu yidhi meeshaan safarka, meeshaana mugdi iyo habeen ay igu noqotay. markaasaa wuxuu yidhi ku martasoore ayaa soo dhowow caawa. soo gal uu dhahay, shaqo yaraan ku jiraa. wuu soo kaxeeyey. nebi ciisuu meel fariisiiyey. wuxuu yidhi halkaan ii fariiso, markaan shaqadan dhammeeyo waa kuu imaanayaa. markaasi kadib waa ku martigelinaya insha allah. markaasi kadib wiilkii waa baxay. wuxuu soo qaaday, nebi ciisa ka sheekeenaya qisadan. wuxuu yidhi wiilkii wuxuu soo qaaday hooyo cajuusad ah uu dhabarka soo saaray. allahu akbar. maanta ma samaynaa? hoyooyinkeena hal mar ma wacnaa kuwa hoyooyinkooda nool. aabbayaashada haddaysan kula noolayn hal mar ma wacdaa? hadday kuu dhow yihiin, hadday kaa dheer yihiin, maalin kasta hal mar ma wacdaa? 2 jeer ma wacdaa maalin kasto? xaaladooda ma weydiisaa? wuu soo xambaaray, dhabarkuu soo saaray, qoluu geliyey. nabi ciise wuxuu yidhi ninkii qolkuu kusoo daahay wiilkii. cabbaar kadib uu ka soo baxay iyadoo xambaarsan, qolkeeduu ku celiyey. waa waayeel waa. aabbihii qolkiisuu galay. aabbihii sidoo kale wuu soo xambaaray. waayeel waha aan socon karin, dhabarkuu soo saaray, qolkaluu geliyey, wuu kusoo daahay. cabbaar kadib uu soo baxay. aabbihii oo qoslaayo sida hooyadii u qoslaysa oo kale oo wejigooda dhaldhalaalayo, qolkiiuu ku celiyey. markaasuu yimid. wuxuu dhahay, raaliga ahow, howlaan ku dhex jiray. wuxuu yidhi qoftii horena iyay ahayd, qofkii dambena yuu ahaa. wuxuu yidhi qoftii hore waxay ahayd hooyaday oo waayeel ah, aan socon karin, afka wax loo gelinayo, marka aan qubaysan karin. marka waxaan xagga u geliyey, waa u soo qubeeyey. markaan qubayska u dhameeyey haddana raashinkaan u diyaariyaan siiyey, afkaan u gelinayo. markay qabowday, raashinka afkaan u geliyey ee faraxday. markaasaan soo qaaday, waa soo xambaaray, waxaan keenay, qolkeedaan geeyey. haddana aabbaan u imid. aabbahay uu ahaa ninkaas. isagana sidoo kale waxaan geeyey meeshi, waa u soo qabeeyey, raashinkaan soo siiyey, markaasaan geeyey. markaasaa wuxuu yidhi ma kuu duceeyaan? markaasaa wuxuu yidhi waxaa yaab badan niyahu martida aan kuu sheegayaa way ii duceeyaan, laakiin labadooda mid walba wuxuu iigu duceeyaa hal duco ay ku soo celceliyaan, midna midka kalena ma oga. markaasuu yidhi hooyo maxay kugu ducaysaa? wuxuu yidhi hooyo markaan meesha dhigo ay dhahdaa wiilkaygu iisoo dhowo oo u dhowaada. markaasaa waxay leedaa wiilkaygu ilaahaan kuu tuugaya, aamiin dheh. markaasoo gacanta taaga, allaahumma ilaahow ijcal haada, kan waxaa ka yeeshaa rafiiqa ciisa fi ljanna. nebi ciise waagaasi
waagii uu noolaa oo nebinimada uu nebiga u ahaa ay ahayd nebi ciise rafiiqiisa oo jannada ilaahu ka yeel aamiin aan dhahay u dhahay aabbaha markaan hojis soo dhameeyey oo aan dhameeyo isagoon ogeyn wuxuu yidhi aabbow iisoo u dhowaadaa gacmaha taag aabbow gacmahan taaga markaasaa wuxuu leeyahay aabbow aamiin ii dheh aamiin aan u dhahaa aabbow ilaahan kuu weydiinayaa allaahuma ijcal haada ilaahu kan waxaa ka yeesha waa wiilkiisii rafiiqa ciisa fi ljanna nebi ciise rafiiqiisa fi ljanna nebi ciise wuxuu yidhi safarkeyga halkaanuu ku dhammaaday maxaa ula jeedaa u dhahay ninkii wuxuu yidhi ilaahan weydiistay inuu nolosha igu tusiyo ruuxa rafiiqi fi ljanna ah ilahay wuxuu dhahay safarkaanaad ku arki doontaa safarkaan gal anta rafiiqi fi ljanna u dhahay ilaahayna taasi nebi ciise uu u waxyooday uu u sheegay gurigan aad joogto waaye waa loo sheegay markii arrintan oo labadaba ay dhaheen labada ducada waalidiinta waa la aqbalaa waalidiinta ducada markiiba waa la aqbalaa weli markiiba culammada qaar waxay dhahaan markiiba hadday wax hor istaagto waxbaa hor istaagay markiiba waa saddex tafsiiray leedahay markiiba waxaad jeceshaa in ilaahay uu ku aqbalo waalidka uu kugu duceeyey ama markiiba masiibo kugu soo socotaba markii waalidka gacanta taagu kuu duceeyey masiibo kugu soo socoto in lagaa celiyey waa tafsiirka labaad waa tafsiirka saddexaad waxaa waaye ducadaasi in dib ilaahay uu kaaga dhigo oo dib markuu u dhigo oo ilaahay uu ku siiyo waqti ilaahay uu og yahay inay kuu khayr badan tahay laakiin mar kasta waa la ajiibaya ducada waalidka ducaa ulwaalideyn laa turad laba waalid ducadooda lama celiyo waalidiinta waxaa u dardaarmaa ilmihiina u duceeya wallahi ilah waa idinka aqbalaya u duceeya fi saxar waqtiga qiyaamuleelka soo kaca ilmihiina u duceeya ilmahana yurub maraykanka joogaan waa dhiban yihiin aan u ducayno allahuma wafiq awlaadana ilahu awlaadana waafaji litaacatika ya rab alcaalamiin inay adiga ku adeecaan wabira alwaalideyn labada waalid inay baari u noqdaan ilahu waafaji allahuma aamiin ilaahay khaas u noqo ilaahay isu dhiib waxaad dhici doonto inaad aragto makhluuqaadka ilaahay uu abuuray adiga inay kuu adeegayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala markii uu ka hadlayay nebi yunus markii ilaahay subxaanahu wa tacala uu ka sheekeynayay oo nebi yuusuf oo saddex mugdi uu galay mugdiga oo bahalkii nibriga ahaa mugdiga badda iyo mugdiga habeenka saddexaas mugdi fii dulumaatin halaath uu kululaabay ilaan calool uu ku dhex jiraa wuu gubtay markaas waa tan wuu murugooday sababta calooshan inuu ku dhiman doonaa laga yaabaa saasuu isdhahay markaasaa markuu murugooday oo keli uu noqday muxuu dhahay walaalayaalow xusuusta wuxuu dhahay laa ilaaha ilaa ant subxaanak inii kuntu min aldaalimiin waa ducada loo akhristo walwalka stresska hadduu stress ku hayo ducadan akhriso 1 jeer akhriso 2 akhriso waqtiga habeenkii akhriso salaatuleilka inaad u soo kacdo tusbax soo qaado ducadan akhriso waad arki doontaa wax walwal oo dhan stress oo dhan culays oo dhan murug oo dhan way kaa tegaysaa culays oo dhan ayaa kaa tegayo xabsi haddaa ku jirta xabsigaa lagaa soo saaraya laa ilaaha ilaa ant subxaanak inii kuntu min aldaalimiin laa ilaaha ilaa ant subxaanak inii kuntu min aldaalimiin ilahay muxuu yidhi fastajabnaa lah waa ajiibnay malaa'igtiyaa ilaahay la hadashay jibriil iyo malaa'igtu waxay yidhaahdeen sawtun nacrifuhu yaa rab alcaalamiin ilaahu waxaa dhiban cod aan garanayno ayaa meel ku dhiban oo ku xayiran intaas waa dhawaaqaysaa ilahay ku ajiibaya fastajabnaa lah waxaa laga yaaba is dhahdo nebiyu ahaa ilahi wuxuu yidhi wakadalika nunji lmu'miniin arrintan khaas kuma aha nebi yunus wakadalika sidaas oo kale asagaa u badbaadinay nunji lmu'miniin mu'miniinta saasaan u badbaadinayna mu'min inaad noqoto keliyaa lagaa rabaa mu'min yaa la dhahaa 5 waqti u tukadaa mu'min yaa la dhahaa carabkiisuu dadka ka reebtaa
ilaahay keliyuu ku xusaa. mu'min yaa la dhahaa dhegihiisa xumaan iyo hayso iyo qurun kuma dhegaysto. mu'min yaa la dhahaa indhihiisa xumaan kuma fiiriya iyo macsi. mu'min yaa la dhahaa xalaalu shaqaystaa oo keliya, xaaraam uu ka fogaadaa. mu'min yaa la dhahaa mu'min waa awliyada ilaahay. fiiri aayaddii aan ku noqonno, laa khawfun calayhim, ma cabsanayaan, walaa hum yaxzanuun. culama qaarkood waxay ku fasiraan markay adduunka ay ka tagaan ma ka murugoonayaan ilmihii iyo xaaska ay ka tagaan. hadduu xaaska uu hormaro oo awliyada ilaahay tahay ma ka murugoonaysta. ilaahay wuxuu leeyahy anaa kuu ilaalinayo. walaa hum yaxzanuun waxaa loola jeedaa ma ka murugoonayaan. hadda badanaa markii hadda intaana dhiman ka hor waxaan ka murugoonaa, ilaahu ilmaha yaa noo haynayo, ilaahu gabdhaheyga yaa noo haynayo, ilaahu caruurteyda yaa ii haynayo markaan dhinto, ilaahu xaaskayga yaa ka warqabayo markaan dhinto, ilaahu waa ku celcelinaysaa. markaasaa ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeyahay ma jiro cabsi, mustaqbalkana kama cabsanaysid waxba inay dhacaan oo ku dhibayo ama ilmahaaga dhibayo. macnaha mustaqbalka soo socdo haddana kama cabsanaysid. laa khawfun calayhim, haddana cabsi ma jirto, walaa hum yaxzanuun, mana ahan iyaga kuwa ka murugoonayo mustaqbalka waxa dhici doono. ilaahay subxaana wa tacaala ayaa wax walba wuxuu u yeelayaa sida kheyrka aad u jeceshahay. marka yaa waa awliyada ilahay. marka ilahi wuxuu yihi aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun. halkan waay marka aladiina aamanuu, iimaanka la soo hormariyay. aliimaanu waxaa ku jirtay dheheen culammada aliimaanu billahi, ilahay qofka inuu rumeeyo iyo wax walbo ilaahay uu amray in la rumeeyo. nebi maxamed nebinimadiisii inuu ugu dambeeyo inaad rumayso. markaa rumayso wax walbo ilahay uu amray in la rumeeyo, waxaa lagaa rabaa ikhlaas oo ah in daacad ay kaa tahay, raaligelin, allahaas inaad raaligeliso oo keliya. cidna aadan ammaan ka sugin, cidna aadan sharaf ka sugin. laa nuriidu minkum jazaan, laa nuriidu minkum, ma idinka rabnaa jazaan walaa shukura. ilaahay subxaana wa tacaala keliya wax ka rabtaa, ilaahay subxaana wa tacaala keliya wax ka sugaysaa, ilaahay subxaana wa tacaala keliya isu dhiibtay. isagaa ku ah alla wax walbo oo gacanta uu ku hayo. isagaa rumaysan tahay. aliimaanu aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun. yattaquun culammadu waxay dhaheen halkan waxaa soo gelaayo wax alle wuxuu ilaahay amrayna waad samayn. salaadaa ka mid ah, soonkaa ka mid ah, wax alle wuxuu ilaahay jecel yahay waad samayn. sunnooyinka o dhan ayaa ka mid ah saa ilaahay ugu dhowaato. qofka taqiga ah waa qof samaynaya wax alle wixii ilaahay subxaana wa tacala uu jecel yahay. waajibka keliya ma aha, ilaahay wuxuu jecel yahay, ilaahuu rabaa inuu raaligeliyo. qofka taqiga ah wuxuu raadinayaa ilaahay muxuu jecel yahay, ilaahay xagguu jecel yahay in la joogo. masaajidka ku arkaysaa markasta. ilaahay yuu jecel yahay in lala joogo. waa saalixiinta awliyada ilaahay. markasta awliyada ilaahay iyo saalixiintuu la joogaa. sida haddoo kale aan u wada joogno oo kale. ilaahay muxuu jecel yahay in la dhaho dikriga ilaahay subxaana wa tacaala. marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun. sifooyinkaas haddii lagaa helo ilaahay subxaana wa tacaala, sifooyinkaas haddii lagaa helo ilaahay subxaana wa tacala waa ku jeclaanayaa. ilaahay hadduu ku jeclaadana awliyada ilaahay uu kaa dhigayaa. awliyada ilaahay markuu kaa dhigana ilaahay waxaad weydiisatuu markiiba ku siinayaa. waayo gaara u tahay. awliyada ilahay soo ma rabna inaan noqonno ilaahay aan gaar u noqonno. bini aadam waxba gaar ha u noqon. bini aadam waxba ha isku dhedhejin, ilaahay isku dhedheji. bini aadam waxba ha wada jeclaan. inaad qof wanaag ku jeclaato waa suurtagal iyo khayr, taas way banaan tahay. laakiin ha isu dhiibin bini aadam. ilaahay isu dhiib. cinwaanka saasaan ka dhigin. ilaahay isu dhiib. bini aadam layskuma dhiibo, ruuxu doona ha ahaado. ilaahay keliya isu dhiib. ma rabtaa ilaahay subxaana wa tacaala in ilaahay saddex ayuu ku qariyuu dhahay rasuulka caleyh salatu wasalaam. saddex uu ilaahay ku qariyey. kow, haddaad jeceshahay ilaahay subxaana wa tacaala inuu raali kaa noqdo oo uu kugu farxo oo owliyadiis uu kugu daro, rida allaahi fii taacatih, asiga inaad isu dhiibto daacad aad u noqoto oo aad caabuddo isaga keliya.
إلهي سبحانه وتعالى رالي كان قنايا وكوة رضا الله في طاعته إلهي مرتين رالي كان قض إلهي مرتا سيدنا إمام الشافعي أيا وحو أركي نن دوافاي نقول لي مركاسي اللهم ارضي عني ودوافايا اللهم ارضي عني إله رالي النقو إله هاي عذاب إله هاي دبن إله صاص الله إمام الشافعي إنك جلاشيس أردى وسمينا طواف مركاسا وحولي يا هذا متكان أو إلهي ويدي سنايو إنو رالي كنوضو هذا إلهي مرة لجلسة وسوفي وحولي من أنت يا تهادي مركاسا وحولي سؤاش كريم كويدي إلهي دار رالي جلسو إلهي سبحانه وتعالى رالي وكان قنا إلهي وحج عليها السماء إلهي وحج عليها السماء ولا ليالو ولا له شرفته قيمها أهل خير كأه إذا جيسنا يا الله له أكري إلهي سبحانه وتعالى إله إنهم كجعل هذا ربا إله سبحانه وتعالى وكجعلها إله سبحانه وتعالى وحول بعد إسيسي إن هذا إسيسي وحكو أركايو كورن دتك كمان عذرك كورونا فيروس دتك كل عياجره إلهنا بدباديو إلهي دين بدباديو أنتو كل عنا إلهي تدق شفاء عاجل إلهي هصير شفاء عاجلا إله سي dadka ku dhaco qaarkooda waxay yiraahdaan urka ka tagay dad aan qaraabanahay oo ku dhacaya qof kamid ah isoo wuxuu dhahay wallahi waxaan ogaaday nicmada urka ka tagay wallahi waxaan ogaaday dhadhanka iyo nicmadiisa ka waran qof wax cunay aan dhaminayn ka waran waxaan inay bariisihiin inay sokoriin ma kala sooci kartid allahu akbar wa cudur imtixaan ah marka ilaahay wuxuu natusinayaa nicmadu nasiy marka maxaa laga rabaa inaan dhahdo ilaahu waa ku jeclahay ilaahu maxaad rabtaa ilaahu inaan sameeyo ilaahay wuu kuu sheegay qur-aanku ku sheegay nebigu kuu soo diray calayhi salaatu wasalaam wuu kuu sheegay wuxuu ilaahay jecel yahay inaad samayso kaliya lagaa rabaa ilaahay wuxuu leeyahay markaad samayso ana waan samaynayaa ixfad illaah yaxfadka ixfad illaah ixfad awaamir allah awaamirta ilaahay ilaali يحفظك إلهي وكو إلالينايا عد كستو كا إلالينا وح دبتو حسد كستو كا إلالينا وحسده إل كستو كا إلالينا وح إليسته شيطان كستو كا إلالينا وح دبه مخلوق كستو كا إلالينا بني آدم وحن بني آدم وح دبه إلهي كو إلالينا وبلنقات رسولك أنه الشيخ عليه الصلاة والسلام احفظ الله احفظ أوامر الله أوامر إلهي إلالي تجده تجاهك والأركي دونتا waxaad hortaada ka helaysaa wax alla waxaad rabto oo wanaag ah waad farxi markaasi saddex ilaahay saddex ku qariyay laba waxaan dhahay kow rida allah fi taacatih in ilaahay subxaanahu wa tacaala ka noqdo wuxuu ku qariyay taacadiisa inaad ku dadaasho غضب الله ilaahay caradiisa wuxuu ku qariyay fi macsiyatih inaad ku caasiso ha ku caasin ilaahay ku abuurtay ha ku caasin ilaahay ku abuurtay هكو عاسن إلهي إندها كسي إندها إلهي كسي وات كو عاسس هداد وحن أكو فيرسو موفي هداد كو فيرسو فيلم هداد كو فيرسو أو فيلم ماذا كجران وحيالها حرام توردن فيلم كجرو خمرو لعبايو فيلم كجرو دراجز فيلم كجرو وحلا دعاية تغنمو فيلم كجرو زنا فيلم كجرو رق هوين أن وحبا كدحين استعتابانايو وحاسونا هدا فيرسو أما فيلم كفيرسو ama life haddaa u tagto meelaha lagu heeso oo markaasi rag iyo haween inay yimaadaan isdhexgalaan ikhtilaad ilaahay waa ka caroonaya ilaahay wuu kuu caroonayaa haddaad dhimato adoo ilaahay uu kuu caraysan yahay waxaa caradaas waxay kaa xijaabaysaa inaad jannada gasho rasuulka xasan wuxuu yihi ثلاثة saddex ayaa saddex lagu qariyay rida allah ilaahay inuu ku jeclaado oo raali uu kaa noqdo fii taacatih طاعة إلهي سبحانه وتعالى غضب الله إلهي عردي سبحانه وقري في معصيته هذا إلهي سبحانه وتعالى أتكو عاسسه وإلهي سبحانه وتعالى وحق روحك أمره لن أديده من السدحات أسرار الله إلهي أسرارتيس وأن لكوبي كريم وحكو قري في خلقه إلهي سبحانه وتعالى وأبوري مخلوقات كأوجدت أذيقا أنيقا وفي إلهي سبحانه وتعالى وحكاد لا يحتاج نفتين ما في لسانه الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون نفتين في لسان الله سمي عندها في رقابك وسمي سيهين
dhagahaaga fiiri qaabkay u samaysan yihiin, sankaaga fiiri shaqooyinka uu qabtay suu u samaysan yahay, afkaaga fiiri suu u samaysan yahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala subxaanah ilaahay waxaasoo dhanna siiyey. yaa daljalaali waalikraam, allahaas inaan jeclaano waaye oo xubbigiisa aan muujinno. waxaan kusoo gabagabeynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nin la dhihi jiray abaa yaziid wuxuu ahaa nin oo cibaadada aad u qarsan jiray. marka nin arday u ahaa arkay maalin maalmaha ka mid ah, tanaan kusoo gabagabeynayaa. ninkaasi ardayga u ahaa wuxuu arkay, waa waqti dheeruu arday u ahaa. marka wuxuu dhahay abaa yaziidow, waxaan ku arkay adoo 2 indhood oo qurux badan wato, haddana muddo kadib waxaan arkay hal il oo kaa tagtay oo hal ilaa kuwa hartay waxaad ku arkaysa. markii dambena waxaan arkay 2 indhood oo kaa dhaceen. abaa yaziidow maxaa dhacay? markaasaa wuxuu yidhi, ma rabin dad inay ogaadaan, laakiin maadaama ardayga aad tahay oo ood khayrka iga guurinaysid, waxaa aad u badan. wuxuu dhahay habeenkiiyaan dhuuntaa, markaan dhuunto ayaan waxaan tukadaa qiyaamuleyl. cid i og ma laha ilaahay aan ahayn, cid i og ma lahan aan ilaahay ahayn subxaanahu wa tacaala. markaasaan waxaan sameeyaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u ooyaa waxa nicmo i siiyey. indhahaasuu i siiyey, dhegahaasuu i siiyey, carabkaasuu i siiyey, gacmahaasuu i siiyey. gaabin aan ka gaabinayo aan dhaho ilaahu waa ka gaabiyey waxaad rabtay inaan ku sameeyo. indhaha wanaag keliya inaan ku fiiriyaad rabtay, waa ka gaabiyey. ilaahu iska kee cafi. waa ooyaa u dhahay. oohintii ilinta faraha badan waa iga daadanaysay. hal ilaa i daciiftay, ishi waa waayey. waa imtixaan ilaahi. haddana labadaa i daciifeen, labadii waa wada waayey. marka abaa yaziid ardaygiisi ayaa wuxuu yidhi, abaa yaziid waa dhintay. markaas ilaah u naxariisto. markuu dhintay ayaa waxaan abaa yaziid ninkii cibaadada badnaa waayo, digriga badnaa, waa dhintay. marka wuxuu riyaan ku arkay asoo nuuraayo oo qurux badan oo qoslaayo. waxaan dhahay, assalaamu calayka ya abaa yaziid. calaykum wasalaam waraxmatullahi wabarakaatu. abaa yaziidow ii sheeg, maxaasee wax u dhaceen markaad naga tagtay kadib? ilan arwaaxda waa wada hadashaa, arwaaxda mu'miniinta xitaa iyagoo dhintay wada arkaa ee wada hadlaan. nabiga calay salam haddaa riya ku aragtay wuu kula hadlayaa. markaasaa abaa yaziid wuxuu dhahay, waxyaa badanaa dhacay. maxaa dhacay? wuxuu dhahay, ma xusuusataa in qofka markii qabriga la geliyo munkar wanakiir loo soo diraayo? haa wuu dhahay. wuxuu yidhi, mala socotaa munkar wanakiir 3 su'aal inay weydiinayeen? haa wuu dhahay. man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka? yaa waaye rabbigaaga oo aad caabudaysa intaad adduunka joogtay? ka waran dadkaan salaad tukanayn. yaa waa diintee haysatay? ka waran dadka diinta islaamka ka baxay. nebigee raaci jirtay? ka waran dadka dad kale ku daysanayo oo ka dhigtay lifestylekooga inay raacaan. markaasaa wuxuu yidhi, 3 markuu i weydiiyey waxay yidhaahdeen, labadii markay i weydiiyeen, man rabbuka wamaa diinuk waman nabiyuka, markay i weydiiyeen aan waxaan dhahay su'aalaan weydiiyey, awa mithli yus'alu can hadihi alas'ila? ma anoo kalea su-aashaan lay weydiinayaa? waqad kuntu ucallimu annaas yowmiyan, maalin kastaan waxaan dadka beri jiray 3dan, ma anaa la i weydiinaa hadda? markaasaa waxay dhaheen, najaxta, waa baastay, hore usii soco. taasaan la yaabiyuu dhahay, waa baastay, hore usii soco. markaasa albaabada jannada la ii furay. ikhwaanii fillaah, wixii oo dhan gacanteenaan ku haysanaa. wixii oo dhan gacanteenaan ku haysanaa. kitaabkii ilaahay gacantaan ku haysanaa. inaan fahamno, xifdinno, akhrino, ku dhaqanno. waxaan gacanteena ku haysanaa sunnadii nabiga calayhi wasalaam. allahu akbar, nicmo ilaahayna siiyey. alxamdu lilah inaad dhahdo waayo. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin inaad ku celcelisaan oo aad dhahdaan waayo. umu sulaym ayaa rasuulka cala isagoo la hadlaya wuxuu yidhi, ma rabtaa ducadaada in la aqbala? haa. wuxuu dhahay, subxaana allah 10 jeer dheh. waxaa ku xijisaa alxamdu lilah 10 jeer. markaasuu dhahay, waxaad ku xijisaa allahu akbar 10 jeer. markaas ilaahay weydiisa waxaad rabto. intaan kusoo gabagabeynaynaa. subxaana allah, subxaana allah, subxaana allah,
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله 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 الله أكبر 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 رسولك وحول ويديست وحا إلهي أذكربتان إله وحنكو ويديسني حلقة إله وحنكو ويديسني حلقة ما أنتو أربعة أن أفضلنا إله ساعدا سيان وذا جوغني دقيقات كستو إله كمانان حسنات ملايين حسنات إله النوغو بدل إله دقيقة سيان أنكو حسيني إله سبحانه وتعالى وحنكو ويديسنينا عرور بدنان لينهي إله عرور تنمال كستادون كي كجوغان إله كوا أذيك كلي كوا أضيعه أو شيطان كدير إله كيان كوا نفتو ذا وحي حمان أي تلمانتو كلا يحضو أذيك كلي كوا عابد إله كيان إله إلمهنا باريال كيال كوا بارينا بقول كي بقول يا رب العالمين إله النوافجي إلمهنا ندعينو إله عرب كنا ذكر وافجي إله دغهنا خير كلينا كدغيسنو أو هيسو إي وحيالها أن عبنتها أنا كدغيسن إله إندهنا موفي إي فيلمada qurunka ah inaan ku fiirsan ilaahu ka ilaali ilaahu maskaxdeena inaan xumaan ku fikirno ilaahu ka ilaali ilaahu gacmaheena inaan xaraam ku shaqaysano ilaahu ka ilaali ilaahu cagaheena inaan meel xaraam aadno ilaahu naga ilaali ilaahu carabkeena inaan xaraam ama xan ama dad aan isku dirdirno ilaahu ka ilaali ilaahu qalbigeena nuurul iimaan ka buux إله هرتنا إله نوريال إله قداشنا إله نوريال إله مدقتنا إله نوريال إله بذحذنا إله نوريال إله كركنا إله نوريال إله هوستنا إله نوريال إله الدنبي والبوعان سميني صغيرة وكبيرة إله نقعف إله هدرتا نقعف إله عرب كنا كقتم لا إله إلا الله محمد رسول الله مركان لمانينو إله كقتم النقع يعرورتين إله هنا تصن وح إندهنا ربا إله عرورت له هنا تصن إله وحده كنا حيان إله هنا مقاشين يا رب العالمين دعوناك يا رب العالمين يا الله يا أحد يا صمد يا واحد يا قهار يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا منان يا حنان يا تواب تب علينا يا تواب يا رحيم فارحم بنا يا رحيم يا رحمن فارحمنا يا رحمن يا كريم أكرمنا هذا اليوم وبقية الأيام يا كريم يا عليم علمنا علما نافعا علم الدين والدنيا يا رب العالمين يا ولي تولي أمرنا يا ولي يا عزيز أعزنا وأعز الإسلام والمسلمين يا بر اجعل أولادنا برا لنا يا الله افتح لنا أبواب الخير يا الله يا حفيظ فاحفظنا من كل شر من شر شياطين الإنس والجن ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر كل عين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا الله كن معنا ولا تكن علينا كن معنا ولا تكن علينا كن معنا ولا تكن علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.